dhihi lahaay haddaan nooshahay gabadhaadii aa ina isoo raadi sidaa rabaa maadaama aad isoo raadi weysa aniga kusoo raadiyey. gabadha yar waxay baadigoobaysaa waa aabaheed. duruufta amba dhibaatada ugu weyn ee dhacdana waa tii mar walba aan ka digi jiray oo hooyo khudbasira lagu guursaday. maantana meel kuma ogo gabadhan aabaheed, gabadhiina waalidkeed ayay u baahan tahay reerkeedii. laakiin waxay nooga sheekeynaysaa arrin yaab badan oo gabadha haysata hadda. ku soo dhowaada qaybta keliyaha iyo kaadamareenka isbitaalka kalkaal, kaasoo diyaar idinku yihiin dhakhaatiir ku takhasusay daaweynta iyo qaliimada cudurrada ku dhaca keliyaha iyo kaadamareenka, iyagoo adeegsanaya qalab casri ah lana jaan qaadi kara dunida casriga. waxay idiin samayn doonaan dhammaan qaliimada xanuunada ku dhaca keliyaha iyo kaadamareenka, gudniin tolma la'aana, daaweynta taranka ragga iyo qaliimadooda. kalkaal hospital, caafimaadkaagu waa mudnaanteenna. salaamullaahi calaykum saaxiib yaal, soo dhowaada. waa mar kale barnaamijkii baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ilinter. anigu cabdilcasiis riiladna waxaa tahay aalaaba la jiraha la joogaha caawiyaha keliya muuqaalada noo sheergaray, meelo badan noo gaarsiiyo saaxiibka nagu xiran muuqaalkaana si sheergaray. saaxiibada youtube-ka nagu soo biiro, subscribe nah waa codsi, subscribe dheh waa dhahda umaleyna gambalaalkana furo. saaxiibada facebookana follow ayaan kaga baahannahay, intaa iyo in ka badan ayaan istaahilnaa, balse marka hore waxaan jeclaan lahaa in gabadhan Soomaaliyeed aan fursad siino. soo dhowo marka hore magacaaga dhammaystiran halkaan naga soo booqatay. Muno Maxamed Cabdi. Muno halkee degantahay hadda? ceelasha biyaha. ceelasha biyaha ka timid. haa yaa kaa maqan waad baadigoobaysay? aabbahay ani dhalay. aabbaha magaciisa dhammaystiran noo sheeg. Maxamed Cabdiyeer Jaamac. aabbaha meeqa sano kaa maqan yahay? markii lee dhalay ilaa hadda ma arkinba. hooyada magaceed? Batuulasho Cumar Ibraahim. aabbaha Soomaaliya kaa qabiilkiisa? dir dirna ma kasii wuxuu ka siiye yaa ma aqaan wuxuu ka yahay. dir wuxuu ka yahay mataqaanid. waa yahay hooyadaha Soomaaliya keed qabiilkeeda? gaal jecel. gaal jecel waa. taa hooyo iyo aabe halkiis guursadeen? Soomaaliya. nace xamar. muqdisho guursadeen? haa aad intee ku dhalatay markaa? Sacuudi. sacuudiyaa ku dhalatay. taa waa yahay see ku weys aabbaha marka? aabbahay hooyaday uur leh oo kala tageen. hooyaday Sacuudi u taariibtay. bis Sacuudi aa lagu dhalay waa laysoo dhiibay ayeeday oo korsataani. mana arkin ilaa hadda. aabe hooyo guurkooda guur oo official oo maaragtay weyn mu ahaa mise khudbasiru ahaa? qobsira. guur hoos u ahaa. haa waa yahay hooyo ma noosha hadda? way nooshahay. ma joogtaa? haa ma weydiisa aabe dadkiisi sida walaashiis, walaalkiis, hooyadiis, aabihiis, familka qofkii ka taqiinay? waa weydiiyey laakiin iyada mataqaan awoowey hadda kor ii imaaday oo aabba dhalay. waxaa joognay meel shabeellada hoose ka tirsan leega la dhahayo. is wuu noo imaaday lambar uu noo qor, lambarkii wuu iga dhume. sax intaa degantaa dhaan xooshaa degan hooy dheh kabacdii dib uma arag. aabbaha muxuu kugu sheegay markaas? aawo aab maxaa dhuweys? ma weydiisa aaba meesha joogo? mayo saa-idaa u yaraa markaas. haye mana sii wareysanin. intee lagugu sheegay marka aabbaha? gaariso. gaaris Kenya. haa waa gartay. awowahaas magaciisi waa awo aabba dhalay miya? haa waa gartay. yaa kaloo ka taqaanaa magac ahaan reer aabbaha? qof kaloo aga kasaay ma lahan. awoow bisle. awow bisa ka taqiinay. haa hooyo qof ay taqaanoo kale ma lahan? maya. waa gartay. aabbaha haddii uu noolyaho muuqaalkan daawado maxaa u sheegi lahayd? waxaa dhihi lahaay haddaan nooshahay gabadhaadii aa ina isoo raadi sidaa rabaa maadaama aad isoo raadi weysa aniga kusoo raadiyey. waa gartay. ma guurista marka adiga? haa hadda xaasaa tahay. saygaaga muu sheegtay inaad baafin samaynayso oo aad aabba baadigoobayso? mayo uma sheegin. sabab? waa wici ma qabanayo taleefon. waa baafintaadu haynana ogow ilaa intuu asiga aan kala hadalno uu kaa fasaxo uu ogolaado in muuqaal lagu sameeyaa. insha allah markaasaan kuu daynaynaa sababto waxaa isku ogtihiin inaad samaysatinaa fiican. tan kale familka ma dhahday waxaan baadigoobaa aabbe ee haleyla raadiyo? haa maxay ku dhahay marka? waa layla raadiyey intii layla raadi karo. haddana wiilkan walaalkaya soo wataba. meeqa carruura ku joogto? hal hal carruura ku joogto. haa waa yahay
aabbaha haddii uu nool yahay amba qof taqaana ay nooshahay oo kugu xiri karto maxaa ka codsan lahayd waxaa ka codsan lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay ila soo xiriiraan. oo aabba ay kugu soo xiraan haa waa gartay aabba la-aanta muddadii aabba la-aanta ahayd oo aabbaha aada meel ku ogeyn maxaa dhibaato kala kulantay walaa waxyaalo badanaa dareemay aabalaanta xanuunay leedahay laakiin hooyadeen ima soo korin aabaheen ima soo korin ayadii ay soo korisaani inkastoo asi isoo raadin waaya inaa aan raadiyo aa go-aansaday. dadka marka weydiiyaan oo ku dhahaan aabbaha aawey maxaa dhahdaa aabahey wuu joogaa wuu nool yahay intuu jiraa Gaariso. waa gartay waa yahay waa guursatay saa i sheegtay see lagu guuriyey maadaama aabbaha uusan joogin see lagu nikaaxiyey abtiyaashii oo joogo iyo awowey aabahey dhalay aa i bixiyeen. sida qofa aabeed la ogeyn camal lagu nikaaxiyey meel lagu ogeyn waa gartay aabbaha iyo awowahaaba marna kugu dambeysaa sheegtay lambar lagaala soo xiriiro haddii familkaas ay aqoonsadaan ku aqoonsadaan lambar lagaa soo wacno sheeg hal furaha hal waaye 79 79 96 96 14 14 magacee ku qoran Muno Maxamed Cabdi. magacaaga ku qoran haa muno haddii lambarkaas lagaa soo waco mar qaar waxaa kusoo wacaya dad waalidka kula raadinayo ku naxariisanayo mar qaar waxaa kusoo wacaya dad feega oo kuwaalayo oo been kuu sheegayo inaad taxadiirtada lagaga baahan yahay oo aad iska ilaaliso dadka tuugada ah oo aad iska ilaaliso kuwa been sheegayo aabe familka qofka taqaano muuqaal ku tusisid oo aada qof go-aan qaadan iska aadin yaa wax kaloo intaa dheer oo noo sheegaysa ma jiro mayo waxaa ka codsan lahaa dadka Soomaaliyeed inay qofkii taqaana aabahey la soo hadashiisa ay ugu soo xiriiriso. waa gartay in baafin la sameeyo yaa kuu sheegay oo dadka la baafiyo yaa kuu sheegay Facebook aa ka arkay. adaa daawada barnaamijka waa yahay waxaan rajeynayaa biidnillahi alkariim inaan ugu soo laabato adigoo faraxsan oo garab lagu siiyey muuqaalka lagu sheergareeyey aabba lagula raadiyey ya insha Allah hadduu Ilaahay idmo. waa mahadsan tahay gudaana muuqaalka inta ayaan jeclaan inaan kusoo gabagabeeyo ilaahu noo rumee yoolka riyada rajada hadafka aan leenahay qalbiyo faraxsan qoys midaysan yowmal qiyaama janno intaan dib u kulmayno nabadgelyo babay